بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. waxaan jeclahay inaan halkan tacsiyo iyo duco ka jeediyo musiibadii ka dhacday suuqa ganacsiga ee magaalada Hargeysa, inaan uga tacsiyeeyo dhammaan intii dhibaatadu ka soo gaadhay iyo bulshada Soomaaliyeed. ilaahayna aan u weydiino tabaaraka wa tacaala inuu waafajiyo sabir, bedel khayr qabana ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala musiibada iyo dhibkaas soo gaadhay. runtii dhibku meesha ka dhacay dhib aada u culus weeye. inta aan xusuusanahay culays intaa leeg, musiibo intaa leeg oo xoole intaa leeg burburisay ma xusuusto deegaamada Soomaalida. waa arrin marka culayskeeda iska leh. keliyata kuma dhicin dadka xooluhu ka burbureen ama xooluhu ka gubteen, laakiin sida la ogsoon yahay bulshada Soomaaliyeed waa dad isku dul nool oo isla nool. in badan oo ama masaakiin ahaa oo ku dul noolaa ama qaraabo ahaa ayaa dhibku gaadhaya. dad badan oo hanti lahaabaa maanta muxuu ahay waxba haysanin oo masaakiin iyo fuqaro noqday. marka arrintu arrin culays aada u badan leh, musiibo culus weeye oo runtii bulshada ku timid. ilaahay tabaaraka wa tacaala bedel khayr qaba ha siiyo. waxaan jeclahay inaan sidoo kale u jeediyo baaq guud ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, dibad iyo gudaba, gaar ahaan dadka waxhaysta iyo ganacsatada iyo intii wax heli kartaba in loo gurmado dadkaas dhibaatadu gaadhay. wixii mushkilada iyo dhibkaasi lagala qeyb qaadan karo ama laga khafiifin karo in laga qeyb qaato. sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay markii dhibaatooyinka noocan oo kale guud ay dhacaan in loo gurmado dadka dhibaatadu gaadhay iyo ummadda musiibadu ku dhacday. waxaa keenaya iimaanka iyo islaamnimada inaga dhexaysa, dhalashada iyo walaalnimada inaga dhexaysa ayaa keenaysa arrintaa iyada ah. marka meel walboo la joogaba arrintaa insha allahu tacaala ha laysu xilqaamo, hana loo gurmado walaalahaasi dhibaatadu gaadhay. gaar ahaan waxaan jeclahay inaan si gooniya ganacsatada reer Kenya ee Soomaalida ah aan insha allahu tacaala ugu baaqo inaan isugu nimaadno fadhiyo iyo kulamo isugu nimaadno insha allahu tacaala, bal arrintaa aan kaga tashano. runtii xilliga ay musiibadu kusoo hagaagtay oo ah xilli abaaro jiraan oo abaarihii ay meelo badan ay dadkii ay dhib u geysteen oo halakeeyeen, xoolo badan baabi'iyeen. ramadaankii oo soo galay oo culeysyadiisa wata dhanka nolosha marka la yidhaahdo, waqtigay kusoo hagaagtay iyaduna waqti runtii culayskiisa leh weeye. marka bal reer Kenya iyo ganacsatada reer Kenya iyo culimada iyo inta waxgaradka aba bal inagana insha allahu tacaala aan kulamo isugu nimaadno, bal arrintaa aan kaga tashano. dadka walaalahana ilaahay tabaaraka wa tacaala mar kale waxaan leenahay ilaahay idin booga dhayo, intii ku dhaawacantayna ilaahay tabaaraka wa tacaala ha caafiyo. waxaa nasiib weyn ah oo wax ilaahay looga mahad celiya tabaaraka wa tacaala iyo bulshada Soomaaliyeed. ilaahayna aan u weydiino tabaaraka wa tacaala inuu waafajiyo sabir, bedel khayr qabana ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala musiibada iyo dhibkaas soo gaadhay. runtii dhibku meesha ka dhacay dhib aada u culus weeye. inta aan xusuusanahay culays intaa leeg, musiibo intaa leeg oo xoole intaa leeg burburisay ma xusuusto deegaamada Soomaalida. waa arrin marka culayskeeda iska leh. keliyata kuma dhicin dadka xooluhu ka burbureen ama xooluhu ka gubteen, laakiin sida la ogsoon yahay bulshada Soomaaliyeed waa dad isku dul nool oo isla nool. in badan oo ama masaakiin ahaa oo ku dul noolaa ama qaraabo ahaa ayaa dhibku gaadhaya. dad badan oo hanti lahaabaa maanta muxuu ahay waxba haysanin oo masaakiin iyo fuqaro noqday. marka arrintu arrin culays aada u badan leh, musiibo culus weeye oo runtii bulshada ku timid.
ilaahay tabaaraka watacaala bedel khayr qaba ha siiyo. waxaan jeclahay inaan sidoo kale u jeediyo baaq guud ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto dibad iyo gudaba, gaar ahaan dadka waxhaysta iyo ganacsatada iyo intii wax heli kartaba in loo gurmado dadkaas dhibaatadu gaadhay. wixii mushkilada iyo dhibkaasi lagala qayb qaadan karo ama laga khafiifin karo in laga qayb qaato, sidii dhaqanka inoo ahaan jirtay markii dhibaatooyinka noocan oo kale guud ay dhacaan in loo gurmado dadka dhibaatadu gaadhay iyo ummadda musiibadu ku dhacday. waxaa keenaya iimaanka iyo islaamnimada inaga dhaxaysa, dhalashada iyo walaalnimada inaga dhaxaysa ayaa keenaysa arrintaa iyada ah. marka meel walbo la joogaba arrintaa insha allahu tacaala ha laysu xilqaamo, hana loo gurmado walaalahaasi dhibaatadu gaadhay. gaar ahaan waxaan jeclahay inaan si gooniya ganacsatada reer Kenya ee Soomaalida ah aan insha allahu tacaala ugu baaqo inaan isugu nimaadno fadhiyo iyo kulamo isugu nimaadno insha allahu tacaala, bal arrintaa aan kaga tashano. runtii xilliga ay musiibadu kusoo hagaagtay waa xilli abaaro jiraan oo abaarihii ay meelo badan ay dadkii ay dhib u geysteen oo halakeeyeen, xoolo badan baabi'iyeen. ramadaankii oo soo galay oo culeysyadiisa wata dhanka nolosha marka la yidhaahdo waqtigay kusoo hagaagtay iyaduna waqti runtii culeyskiisa leh weeye. marka bal reer Kenya iyo ganacsatada reer Kenya iyo culimada iyo inta waxgaradka aba bal inagana insha allahu tacaala aan kulamo isugu nimaadno, bal arrintaa aan kaga tashano. dadka walaalahana ilaahay tabaaraka watacaala mar kale waxaan leenahay ilaahay idin booga dhayo, intii ku dhaawacantayna ilaahay tabaaraka watacaala ha caafiyo. waxaa nasiib weyn ah oo wax ilaahay looga mahad celiya tabaaraka watacaala dabka dhibkaa geystay iyo musiibada intaa leeg inuusan dad ku dhimanin waa ilaahay naxariistii way tabaaraka watacaala. marka ilaahay tabaaraka watacaala wixii masaa'ib ee soo socdana allah inaga ilaaliyo, inta dhacday iyo waxyaalaha dhacayana ilaahay tabaaraka watacaala sabirkeeda allah ina siiyo, bedel khayr qabana allah inaga siiyo. runtiina dhibaatooyinkan dhacayay ilaahay inama dulminin, ummaddana ma dulmiyo, laakiin khaladaad la galay natiijo ka dhalanaysa weeye. arrintaasina waxay u baahan tahay inaan muraajacayno, bal nolosheena dib ugu noqono, wax badan saxno oo ilaahay loo toobad keeno tabaaraka watacaala. aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiin. waxaan isku ognahay insha allahu tacaala sidii caadada inoo ahayd inaan hawshaasi ka gurmano oo ololaheedii iyo gurmadkeedii aan bilowno insha allahu tacaala. allah ina waafajiye khayr oo dhan, xumaan oo dhan allah ina garamariyo. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.